بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا حسن إسحاق وحسن أضي deegaan kan ama gobolkan Togdheer ka tirsan odayaashiisa halkan waxaan kaga hadlayaa arrimo dhowr oo ay ka mid tahay ahmiyadda uu leeyahay nabadgelyada iyo sida loogu baahan yahay nabadgelyo maanta in lagu wada noolaado dalka oo dhan ay nabadgelyo ku noolaadaan marka horeysa waxaan taaniyadeynayaa oo aan aad iyo aad ugu taaniyadeynayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Maxamed Ciro go'aamada wanaagsan ee xagga nabadda uu ka qaatay iyo sida uu ugu dadaalay inuu nabadda ka qaatay ahmiyadda koowaad u siiyay nabadgelyada waxaan ku taaniyadeynayaa horumarka iyo muddada yar uu joogay xilka hayay aan gaarin 3 bilood uu qabtay runtii aad iyo aad ka muhiimka ah talaabada siyaasadaha ama ha noqoto xagga nabadgelyada iyo horumarka laga sameeyo iyo shaqada ka socota ama ha noqoto kaabayaasha dhaqaalaha laamiyada iyo horumarka socda dalka ka wargalay dhammaan waa ku taaniyadeyna waxaan leeyahay ilaahay xilkaaga kugu asturo muddooyinka kugu horay xilkaagana ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan kaaga baryaynaa inuu ka dhigo kuwa dadka iyo dalka uga faa'iideyso dadkuna ay maaragtay mahadiyaan ilaahay inuu ka dhigo adiga iyo dawladdaada iyo madaxweynaha ku-xigeenkaaga iyo dhammaantaaba waxaan leenahay ilaahay idinku asturo xilkaa qabateen runtii diilo wacan baa dadka gashay intii runtii hadda ay jirtay xukuumaddan cusub ay jirtay muddada gaabana waxaan aad iyo aad ugu taaniyadeynayaa madaxweynaha go'aamada uu ka qaatay nabadgelyada dhinac kasta ay tahayba uu ka qaatay waxaan ku taaniyadeynaynaa waxaan leenahay nabadgelyo nin waliba inuu dan u tahay oo uu u baahan yahay waa caddaan oo dee la isku muransana nin nabadgelyo ku ceeboobayana ma jiro marka waxaan leenahay nabadgelyada waxaan kugu bogaadinayaa nabadgelyada aad go'aansatay inaad priority-ga koowaad ama dee siiso waxaan kugu taaniyadeynaynaa guddida aad u magacowday ee ragga 7 ah ee odayada ah ee muxtarimka dhammaantood ee xilkaska ah ee dhaqan yaqaanka iyo sida aad ugu xulatay iyo go'aankaad ka qaadatay inaad samayso guddi cusub oo nabadgelyada ka shaqeysa qaranka sida aad u xulatay gudoomiyaha iyo ku-xigeenka oo laba oday oo runtii dhaqan yaqaan oo dee ummadda Soomaaliland ay aad u taqaano ku suntan aqoon iyadoo 7 odayba aanay maaragtay runtii kala dhicin oo isku wada mid yihiin haddana hoggaanka dooratayna waan kugu taaniyadeynaynaa wax kasta oo horumar iyo wanaag u qabato dadka Soomaaliland iyo ummadana waxaan leeyahay marka xukuumadda timaado kulli xukuumad kasta waxay u baahan tahay taageero u baahan tahay inaguna waa ka hortagnaa waxaan leeyahay wixii wanaagsan ay qabato xukuumaddu ha lagu taageero wixii qalloocana si wanaagsan oo maaragtay nidaam iyo mucaaradnimo wanaagsan ha lagu toosiyo halka markaan ka gudbo waxaan aad iyo aad u taaniyadeynayaa ama soo dhaweynayaa dhammaan cid kasta oo nabadgelyada maanta jirta ama colaadaha maanta jirta daminaysa hadday tahay guddidii isxilqaantay ee suldaanka garaad kulmiye uu watay kililka ee absame hadday tahay cid kasta oo shaqo ka qabatay ama ka dhaqdhaqaaqday ereyadan colaadu ka jiraan ee Soomaaliland ku xeeran ama iyada ka tirsan gudaheeda ama hareeraheeda waxaan nabad ugu baaqayaa anigu aan leeyahay nabad inay ku wada noolaadaan dhammaan Soomaaliya oo dhan meel ay joogtaba takililka shanaad joogta iyo NFD joogta iyo joogta Soomaali weyn oo dhan waxaan leeyahay war nabad ku wada noolaado nabad haddii helin oo ismariisaan meesha waa ka baxaysaan oo runtii waxaa noqonaysaan qaran beri jiray magaciisa waxaan leeyahay nabad baan ugu baaqaya waxaan leeyahay nabadda ha lagu soo jeesto ha laga shaqeeyo nabadda colaadaha soconaya iminka aynu sameeyaan dee ka jira dalka ama dunida qaar ka jira ama Soomaaliya qaar ka jira waxa weeyaan colaado aynaan horey u arag oo dhaqanka ka baxsan oo nidaamka iyo ka baxsan Soomaalidu say isu diri jirtay oo birmageeda la dhaafay waxa lagu sheegi karaa inay tahay jiriif badaha marka kalluunka maraakiibta oo jiriifayaan waxay laayaan jabiyaan dhagaxa ay ku dhasho kalluunku dhalay jabiyaan marka waxay meelaha qaar arkaysaa meelo la leynayo dumarkii uurka lahaa caruurtii la leynayo jiriif baa ka socda colaadaasi waxay ag tahay mid aan loo baahnayn ilaahay u naxariistay wuxuu yidhi Cabdullaahi Suldaan Timaade gabaygiisii waxaa ka mid ahaa dugsi meel qabyaalada waxay dumisay mooyaane Soomaalida wuxuu uga gabiyay waqti dheer bay ahayd wuxuu yidhi dadka kama yaraateen way istabar jaraysaa dabarku baqtiye meel kala dogob ka qiiqaay dugsi meel qabyaalada waxay dumisay mooyaane war qabyaaladan maanta Soomaaliya ay ku dabar gooday ee isku maraysay waxaan leeyahay danteena maaha waxa weeyaan waa dabar gooyna weeye hubbaa la soo qaadanaya qof kastoo Soomaaliya maanta qorigu soo qaato walaalkii buu sitaa
yaman baa 500 sanadood laga soo qaadanayay maxay ahayd toy hub laga soo guranayay 500 sano oo isku dilaynay iyaga qabaylkooda iskuma dilaan waa ogtihiin dadka idin la deriska iyo qoomiyadaha idinka faraha badan meel walba idin kala deriska ay runtii iyaguna sidaas oo kale day isma dilaan oo isma laayeen marka Soomaalidu waxay ku jirtaa meel aad iyo khatar u habay ku jirtaa nolosheedii iyo jiritaankeedii inuu meesha ka baxo ayay qarka u saaran tahay taamarkan ka soo gudbo waxaan nabad ugu baaqayaa oo aan leeyahay nabad ku wada noolaadan jecelahay oo aan doonayaa inay dhiigooda iyo naftoodaba siday xaraanta Ilaahay uga dhigay isaga xarimaan dadka ku nool deriska ka ilaa iyo meesha la tuula qaran ilaa laas qoray iyo mayd dadkaasi waxa weeyaan beesha kabla laxdaarood iyo beesha isaaq dadkaasi waa dad dhaliya walaalo ah isku nool ah Ilaahay wax isugu daray intaasi deriska yihiin derisnimo ay wadaagaan diin bay wadaagaan dhaqan bay wadaagaan rixin bay wadaagaan wax kasta oo bini aadam Ilaahay abuuray wadaagaan way wadaagaan oo diinta iyo dhaqanka iyo riximka laba kasta oo halka degan waxa weeyaan dad runtii walaalo Ilaahay wax isugu daray oo u baahan inay nolol wada noolaadaan inagoo runtii dadkii dhaqanka lagu xamin jiray ama Soomaalida dadkii ugu xagga dhaqanka iyo aqoonta ugu fiicnaan jiray maanta in la doorto inaynu noqono dad iscunayo sida waraabaha iscunaya waa arin aad u xun waa arin aan maaragtay loo baahnayn waa arin qaab daradeedu ay aad u xun tahay oo dadkaasi maanta inaynu inagoo caqli leh oo hanjabeyno oo doodayna oo qabaa'il isugu faanayno oo caqli dad la iska dhigayna inaynu dooranno inaynu aakhirana cadaab gallo iftiinkana ka tagno oo nolosheenu baabaado in dhalinyaradeeni meel walba iyagoo dhabarka iyo araxda iyo meel walba ka dhaawacaan oo raxanguluugu ayay dhaawac la jiifto in agoomihii iyo dadkii maaragtay maxasta ahay meel walba waran yihiin inaynu dooranay nolosha inaynu ku noolaano arrintaasi waxay la tahay waa arrin aan aad iyo aad u xun waana leeyahay laga waantoobo hal la sameeyo dadku waxay soo in la soo celiyo dadka imika Ceerigaabo ilaa iyo Qurlugud markaan ka hadlay ku soo dhawaado dadkaasi waxay u baahan yihiin nabad bay u baahan yihiin waxay u baahan yihiin danahooda ka shaqeystaan oo horumar sameeyaan inay dhiigooda kala badbaadiyaan inay nabad ku noolaadaan baan ugu baaqayaa waxaan leeyahay war tol baad tihiin deris baad tihiin dhaleeyaa tihiin nin walba walaashii ka dhashay iyo kii eedadii dhashay bay iska soo horjeeday iyo kii uu isagu dhalay dadka waxaan leeyahay waa inaad runtii ama aad nabadda iyo dhadhankeeda iyo wanaageeda waa inaad maaragtay aad dareentaan oo aad dib ugu soo noqotaan nabadii la soo celiyo Ceerigaabo waxyaalaha ka soconaya xagga nabadgelyada ee qolada odayada dhaqanka ka wadaan nabadgelyada iyo hawsha ay wadaan aad baan ugu bogaadinaya waxaan leeyahay Ilaahay idinku guuleeyo ta kale ee ka socotay madaxweyne ku-xigeenka iyo wasiirka gaashaandhigga iyo jaranka ciidanku wadaan ee maaragtay qaramaynta madanigana aad iyo aad baan u soo dhaweynaya waxaan leeyahay waa arrin guula runtii in la soo celiyo nidaamkii iyo kala dambeyntii dalka la soo celiyo in dadku ciidan iyo noqdo ay helaan wax difaacan helaan iyaguna ay nabad ku noolaadaan qoriga shacabku siteed qoriga gaariga saaran shacabku sitana in meesha laga saaro anigu waan soo dhaweynaya qaramaynta waan soo dhaweynaya waxaan leeyahay Ilaahay idinku guuleeyo hawl wacan baa qabatay waana fikirada wanaagsan ee ka soo baxay xukuumadda cusub runtii intii hore madaxweyne Muuse Bixi dalka haystayna waxaynu aad ugu codsanaynay inaynu ciidamada la qarameeyo waxaynu codsanaynay waxaynu lahayn markii dagaal dhaco madaxweynaha ka dambeeyo muddada ku kororsanaya maantana waxaad moodaa in ciidamadii la qarameynayo dadkii ka hadlayaan oo ka soo horjeedaan haddii nabad lagu baaqa ay leeyihiin nabadda maxay tahay marka waxa weeyaan dadku inay madaxweynihii kasta iyo ninkii maamulka meesha xukuumadda joogaba ka hor yimaadaan oo wixii uu keeno isagu marka haddaan u arko ay ku dhibsadaan ma fiicna runtii waxaan leeyahay aad iyo aad baan u soo dhaweynayaa waan ku bogaadinaya madaxweyne ku-xigeenka iyo waftiga uu hogaaminayo iyo hawsha ay qabteen ee qaramaynta madaniga taasaa tayo badan oo nidaamka iyo nolosha u wanaagsan oo nabadgelyadeena u wanaagsan oo dhexdeena qaska ka dhici lahaa ka nabadgelaynaa oo ay runtii cid waliba danteedu ku jirtaa oo iyaga noloshoodana u wanaagsan marka waxaan leeyahay taana waa soo dhaweynaya ciidanka madaniga yaan laga hor iman hal la ogolaado hal la qarameeyo anna waan soo dhaweynaya in la qarameeyo waayo danta ku jirta danta dadka waxay ku jirtaa in la qarameeyo dadkaasi yeeshaan nidaam iyo meel ka amar qaataan taa markaan ka gudbo aan ku soo noqdo Buuhoodle iyo Qurlugud oo anigu aan ka soo jeedo waxaan leeyahay waxaan soo dhaweynayaa nabadda iyo dhaqdhaqaaqa ka soconaya waxaan leeyahay runtii marka la leeyahay Qurlugud iyo Buuhoodle maaha Qurlugud iyo Buuhoodle arintu
in la dhuubo oo la yareeyana maaha waxa weeyaan dadka degani waa dad ballaaran waa dadka cayl ilaa kiilka shanaad ka dariska waa dadka Qorlugud ilaa Burcad degan waa dadka degan Buuhoodle ilaa inta mudug ka sokaysa degan dad ballaaran bay metelaan ama kadee magacaasi metelaya imika waxaan leeyahay markaa arrintaasi aan la dhuubin waxa weeyaan meel ballaaran haday nabad ka dhalato oo nabad ka timaado oo Ilaahay nabad ka keeno oo ay lagu guuleysto deegaamada kan saameynaysa dagaaladii hore ballaarnaa ee 8maadkii iyo 9maadkii ku soo dhamaaday 9maad ku soo dhamaadayna sidaas oo kale kor uga soo bilaabmeen waa tii gowlalaale lagu qabtay shirkaas baa soo daadigay dalka oo dhan gaaray ilaa Sanaag iyo Badda ayuu ku talaabay nabadgelyadii gaadhay marka waxaan leeyahay hal la soo dhaweeyo qof kasta oo deegaanada deganina ha ku dhiirado inuu nabadda ka qayb qaato meesha laado Qorlugud iyo Buuhoodle dhexdooda 15 sanadood ayaa dhiig bax ka soconayay dadku saa ugu dhimanayay boqolaal inaan baa inaga dhintay boqolaal baa ku naafoobay waxaynu ka faa'iidnay waxaynu kala qabsanay ma jirto inagu waa ka duwanahay waxa la danta reerkaaga dariskaaga lagama tashaday Soomaalidu tiraahdaa Buuhoodle iyo Qorlugud way ka duwan duruufta taala way ka duwantay dalka kale waayo 15 sanadood imik geeri iyo dhaawac iyo dhimasho ay wahayd nolol xumo ay wahayd may jirin wax allaaliyo waxba yaraatay ay ku noolyihiin cisiye ma jirin iyo shar iyo karaamahay marka waxaan leeyahay nabadda la soo dhaweeyo dhaqdhaqaaqa socdana hal la taageero aniguna nabad baan ugu baaqayaa haddaan hay ka hadlayo shakhsiyadayda waxaan leeyahay Buuhoodle iyo Qorlugud nabadda hal la xoojiyo labada deegaanba ka shaqeeyeen dadka ehelka weeye nin walba Buuhoodle iyo Qorlugud buu ka soo jeedaa sidaydoo kale oo nin walba waalidkii labadiisa waalid waxa laga yaabaa inta badan dadka deegaanka deganay Buuhoodle iyo Qorlugud ka soo jeedaan abtiyaal ay adeer laysu yahay abtiyaal iyo waxdee ka sii dhawo mid walaasha dhashay iyo abarwadaaga iyo raabtiga iyo ehel iyo rixim la yahay waxaan leeyahay laga shaqeeyo nabadda laga shaqeeyo lagu dhiirado halala shaqeeyo dhaqdhaqaaqa iyo odayada soconaya dan inoogu jirto colaad ma jirto 15 sanana waxaynu ku nooleeno nolol ma jirto waxaan leeyahay marka war laga shaqeeyo nabadda aniguna waxaan ku baaqayaa nabad naftaydan kaga masuulahay wixii ila fikir baan kaga masuulahay fikirka aan qaba wixii nabadda jecel baan kaga masuulahay wixii nabad taageeraya dhiiga daadanaya la joojiyaan kaga masuulahay wixii jecel dadkooda dhimanaya iyo dhalinyaradooda halka ku maranaysa maalin walba ee macna darada ku dhimanaysa ku dhaawacmaysa inay nabad galaan baan ka masuulahay dumarka iyo dhalinyarada waxaan leeyahay war dhibaatada idinkaydu ku dhacaysa kuwa goblamaya guryahoodii madoobaanayaan maanta cusub dunida waa idinka nin waliba wuxuu ka tegayaa laba caruur iyo gabadh uur la kaga tegayaa gabadhu ninkeedii baa dhimanaya xaga kale waxa laga yaabay walaalkeed ku dhinto dhinac walba way ku dhimanayaan dadku iyagu way ka saameynaysaa haweenka markaan idhaahdo dhalinyarada dagaalka loo adeegsanayo ama dagaal ku jirtana waxaan leeyahay war dhibku idinku dhacaya markay 200 oo wiil dhintaan laba oday baa dhinta ama la isku keen diro ama la idin kala celiyo cid allaariyo cid idin isku keen dhaanta ma jirto daris baatiin ceelka wada cabayseen biyaha deegaanka wada lahaydeen waa isku tiirsanayeen ehel baa ahaydeen waxaan leeyahay hal la soo celiyo in dadkii wax isu ahaa ay la soo celiyo ee dadka kala fogay maanta qabiilka lagu sameeyay qabiilka 2,000 kilomitir isaga soo ciidaminaya inaan waxba isu ahayn wax isu yihiin labada Ilaahay meesha ku wada abuuray 3 kilomitir iyo 5 kilomitir isu jira inay wax isu yihiin in la garto ayaan ku borinaya dadka waxaan leeyahay nimayow deegaamadan ku nool ama dadkan colaaduhu imika aad u haystaan ee xuduudka iyo wixii ka hooseeya badda jooga war nabad laga shaqeeyo wixii nabad wada hal la taageero wixii dagaal iyo dhibaato wada dan kale watana hal ka hor yimaado hal iska celiyo sidaas aan leeyahay. Wassalaamu calaykum warahmatullaahi wabarakaatuh.